waa kan marka muuqaalka rabo gabadha yar siinka yar hadda laga duubayo filinka gabar yar kuma jirin ilmaha yar ee ku jira filinka hal wiil oo ahaa laakiin gabar yar hadda kusoo biirtay so marka gabadha ma gabar caadi ugu soo biiri doontaa mise waa gabar lagaga sheekeyn doono oo lagu soo qaadan doono inay tahay tusaale ahaan habboon oo yar markii reerkan ay helayeen waxyaabaha kale cajiibka ah waxa weeyaan qaybta yar boon markaan caadi indhaha u shidatay gabadhii ismaaneed cunaha inta la qabtaa sariir lagu tuuray adiga maxay kula tahay commentiga igu soo qor filinkan seasonkan labaad inuu noqon doono habboon ma noqon doontaa geesiyad markaas xaqeeda dhacsato sidoo kaleeto jamaal ma usoo bixi doonaa qof markaa habboon ku cariiriyo oo hee laftirkiisa oo maseeri waali geliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta leh welcome back with another video mar kale muuqaal cusub intaan muuqaalkeena u gudagelin waxaan ka codsanaa janaalkana subscribe saartid yes waa walaalkiina riiraash subscribe-ka waxba idinkama dhibayso midda kale janaalkayga hoos u dhac badanaa ka dareemayaa please waxaan kaa codsanayaa muuqaalka inaad like ii saartid commentigana waa ii dhiirigelin intaa ii samay saddexdaa kaliya samay subscribe comment like mid afraad ma ku darsaa and share okay titleka intaan u galin muuqaalkayga marka hore waxaan ka codsanayaa horta inaan nabiga ku salino calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay waajib ayay nagu tahay muuqaalkayga maanta waxaan kaga hadlayaa sidaad kusoo aragtay ama ciwaanka ama titleka muuqaalka waa kasoo raacday saad muuqaalka usoo gashay maxaa ka cusub musalsalka habboon maxaa kusoo kordhay maxaa la filan karaa shirkadda astaan filimada ama astaan t v ayaa waxay soo gudbisay muddo dhowr adiga 10 saacadood ka hor waxay soo gelisay muuqaal hordhac ah ama xayeysiin ah oo ballamin ah in ay bilaabi doonto season 2 macnaha season 1kii wuxuu ahaa ilaa iyo dhowr iyo 10 xalqadood kan marka wuxuu noqday season 2gana wuxuu yeelan doonaa asna xalqado aad u badan waxaana laga yaabaa inuu yeesho season 3 season 4 season 5 filimka habboon ee aadka u macaanaa the best musalsal oo inta Soomaali musalsal arkay maxaa ku cusub inta yaristi oo balaminta aan ku arkay waxyaabo badan kala baxay iyo waxyaabo kaleeto oo dad asxaabnahay ka yara degdegay soo marka waxaan rabaa horta maxaa ku cusub filimka qofka ugu horeeyay aan ku arkay inuu filimka ku cusub yahay waxay noqotay gabar aad u yar gabadha aadka u yar I don't know laba mid ay noqon kartaa waxay noqon kartaa in ay tahay habboon oo yar oo macnaha sheeko dibna loo celin doono ileen habboon iyadoo yar la keenay sheekadeedii guriga sida lagu keenay wax oo dhan lama tusin gabadha yar waxaan u maleynayaa inay tahay habboon oo yar in dibna loo celin doono macnaha back lagu sameyn doono marka hore in yar aan isla yara daawano muuqaalka yar ee ballaminta ah ee soo bandhigtay astaan astaan tv waxay sheegtay inay toos ugu soo laaban doonaan December bisha 12aad almost hadda adiga waxaa naga xigto adiga bil iyo 6 cisho meelahaas naga xigto kale December bilowgeeda ma noqonayso ugu yaraan bil iyo half kadib inuu noqdo laga yaabaa maadaama December dheheen December 1st inay noqon waysa macquul okay xayeysiinta yar waa shaqadii oo la wado oo dadkii jilayaasha ay ku wada jiraan iyo cameramanada weeyaan filimka caadi lama soo dhaxgelinin laakiin xayeysiinta markaa daawanaysid waxba kaaga yara baxay mina asla daawana waxa ka helay qalabka loo isticmaalayo waxyaabaha loo isticmaalayo filimkan in lagu duubo macnaha inuu professional yahay waxa ku cadeynayso tayada filimka inuu aad u qurux badan yahay qalabkaas diyaarsan crewgaas diyaarsan ama kooxaas diyaarsan ee filim duubayso macnaha markaad aragtid qaabka hadda xayeysiinta loo sameeyay ama dadka duubay marka kor kamerada lagaaga qabto lagu sawiro this another level wuxuu ka dhigan tahay in season 2 sidii season 1 si ka qurux badan loo soo wado wow gurigii waa kana guriga quruxda badnaa waa kan marka muuqaalka rabo gabadha yar siinka yar hadda laga duubayo filimka gabar yar kuma jirin ilmaha yar ee ku jira filimka hal wiil oo ahaa laakiin gabar yar hadda kusoo biirtay soo marka gabadha ma gabar caadi ugu soo biiri doontaa mise waa gabar lagaga sheekeyn doono oo lagu soo qaadan doono inay tahay tusaale ahaan habboon oo yar markii reerkan ay helayeen
waxyaabaha kale cajiibka ah waxa weeyaan qaybtaa yar macnaha filimada musalsalka intaa daawanayay qofka atriishada ah seasonka koowaad way dhiban tahay 2 iyo 3 waxa laga yaabaa inay miciye la soo baxdo si lamid ah habboon markaan caadi indhaha u shidatay gabadhii ismaaneed macnaha inta la qabtaa sariir lagu tuuray marka season 2 waxaan filanaa habboon oo sidii hore ka dhidhiiran macnaha habboontii hore oo jilcaneed iska oon jirto masaakiinta ay ahaynoo habboon indha adag midda kale meesha waxaa ka cad in habboon ay guriga kusoo laaban doonto saasaa ka cad waxayna sidataa sawirka aabaheed ilaa hadda laabta ku wadataa aye waxay soo laaban doonaan ama filimkan lasoo dayn doonaa season 2 xalaqadiisa ugu horeyso bisha December macnaha bil iyo xoogo kadib bil iyo 10 cisho ku dhawaad adiga bil iyo dhowr iyo 10 cisho ay noqon kartaa maadaama December ahayn December dabayaaqadeeda miya bilowgeeda miya wili ma kuma arkin xilliga saxda ah laakiin December meesha ku qoran maxaa ka filan karnaa marka filimka habboon waa falanqaynteena intaas ku saabsan tahay waxaan ka filan karnaa horta marka koowaad habboon season 1 astaan laftarkeeda ma filanaynin filimkan inuu heerkan gaarayo oo dadka aad u jeclaanayaan oo qarxi doono ma filanaynin maadaama ayna filanaynin wax sababta keentay in season 2 la kala jaro season 2 dib loo bilaabo oo macnaha filimkii la dheereeyo so marka waxay ka dhigan tahay in wax badan laga bedeli doono oo khibrad ay ka qaadan doonaan season 1 ka qaladaad haday ka dhaceen xagga codadka xagga qurxinta waxyaabo badan season 2 ga laga filan doonaa labo waxaa kaloo season 2 laga filan karaa sida musalsalada caadiga aan ku naqaano ama seasonada oo caadiga aan daawano Mareykan ha noqoto ama Hindiya ha noqoto ama Turkiya ha noqoto waxaan ku filan karnaa inay kusoo biiraan wajiyo cusub taasna waa macquul wax ugu horeeyay hadda aragna waxay tahay in gabar yar ay kusoo biirtay inta in ka badan kusoo biiri karo qaas ahaan waxaa laga yaabaa in uu filimka kusoo biiro wiil markaa Jamaal habboon ku cariiriyo wiil Jamaal macnaha markaa filimka xifaaltan kula sameeyay wiilka koowaad ee Jamaal xifaaltan kula sameeyay la yarkii wuxuu ahaa doqon matalay laakiin maybe inuu soo baxo nin kale sidoo kale in qaybna laga tusaa laga yaabaa sida aan jeclahay habboon sheekadeeda qofka aabaheedu yahay habboon taariikhdeeda in qayb kamid ah season kan laga tuso filimkan wuxuu u badan yahay saan rajeynaa inuu yeesho season 3 oo season kan hadda markii la dhameystiro in season kale lagu beeriyo maxaa kale oo filan karnaa waxaan filan karnaa habboon laftarkeeda season kan inay isbedel ku imaado inuu ku imaado macnaha indhashidasho iyo wajiga inay macnaha ka dhigato daadeeg sida muuqaalka hadda arkaynay iyadoo ismahan kala tuurayso waxyaabahaas oo dhan midda kale dadaalkii dhakhtaraddan waxa laga yaabaa inuu meeshiisa ka sii laba jibaarmo because arkaynay oo lama ahan inuu qabownaan doono waxyaabo badan adiga kolley maamadana inteeda yarna xifaaltankeeda yarna weli wuu taagan yahay habboon season 2 waxaa la filayaa inuu kasii adkaado season 1 waxyaabihii ku dhacay inay kaga sii adkaadaan season 2 waxaa kaloo la filayaa in ay noqoto maxaa la yidhaahdaa mid markaa iyadana sidoo kale doorkan firfircooni badan samayso qaybta ugu dambeyso dhibaatooyin caynkee ayaa la kulmi karaa markaa directorada ama qoladan filimada sameyso caalamka kontrada filim lagu sameeyaa dadka filimada sameeyay waa dad professional film u tababaran oo haddii seasonka xataa waxaa arkaysaa filim 10 sano socdo filim waxaa arkaysaa 6 sano 7 sano 8 sano socdo oo sanad walbaba qayb loo duubo inta hawada laga yara baxo sida hadda habboon oo kaleeto waxaa la maqnaa Ramadaantii ilaa hadda la maqnaa marka in saas oo kale caalamka laga baxo waxyaabaha aniga aan isdhihi karo challenge waa kaga hor imaan karaa haddiina filimkan hore iskaga gabagabeenin waxaa ka mid ah isbedelka shakhsiyadeed dadkan karakteradan filimkan jilaayo Soomaali waaye waa ogtahay Soomaalidana miisaankooda isbedelkooda jireed wuxuu isku bedelaa dhaqsi isku bedelaa adiga dadka filimka ku wada jiro waxyaabo badan iska bedeli karo soo waxaan rajeynayaa in taas iyaga la tirkooda ay ka baaraan degeen filimkan season 3 haday sameynayaanna intuu filimka socdo daawashadiisa inay ku daba kabi doonaan adiga maxay kula tahay commentiga igu soo qor filimkan season kan labaad inuu noqon doono habboon ma noqon doontaa geesiyad markaas xaqeeda dhacsato sidoo kaleeto Jamaal ma u soo bixi doonaa qof markaa habboon ku cariiriyo oo laftirkiisa maseeri waali kaliyo muuqaalka inta isku soo gabagabeynayna hadaa ka like noo saar please channelka subscribe noo saar muuqaalka like saar comment waa noo dhiirigelin waxaa sameysaa waxaan ka codsanayaa channelka
inaad Trilash Films searching-ka gelisid maxaa yeelay down ayuu channelkeena noqday, subscribe-keena iyo views-keena isma lahan. Si aan usoo laabano insha Allah tacaala reaction badanna halkan kugu soo gudbiyo. Sidoo kaleeto filmaana soo gelinay, soo daawo filmahaas qosol, filmo kaleetana waa idiin soo wadnaa oo toddobaadkan ay idiin soo gelin doona hadduu Ilaahay yiraahdo. Muuqaalkeena inta soo gabagabeynaya inta kulmi doona muuqaalka xigay waxaa idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.